بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو وناكسن beelkastaad joogtaan. soo dhawaada daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudano. waxaan rabaa maanta inaan faahfaahiyo arrimo waaweyn oo xasaasi ah. arrimaha xasaasiga maxay yihiin? hadda ka hor u jeediyay fiqi waraabe oo ahayd farmaajo waa maleeshiya beeleed oo samaystay ciidamada gorgor ee xoogga dalka Soomaaliya iyo asagiyo gorgor Amaaniya waa idin soo bandhigaya maqal iyo muuqaal baan ku soo bandhigaya dabadeedna waa faahfaahinaya. waxaan ka rabaa Xasan Garguurte oo gabar yar oo miskiin ah oo Soomaaliyeed ku haya xawaluun meeyo qorigeedii ayana waa idin soo bandhigaya. maxay tahay arrinta noocaas? ma arrin qof madaxu oo ku hadla ma arrin uu jeedin karaa qofka dumarka ah maxay tahay micnaheedu haddaan nahay dad islaam anagu maxaa loogu talagalay soo nisama ah ayana waa faahfaahinaya. soo dhawaada barnaamijku waa xasaasi laba qodob oo xasaasi ah waliba haddana waxaan faahfaahin doonaa ku darayaa arrinta Soomaaliya maxay cabay tacaal qodobadan ugu gudagelaya waxaan u hormarayaa fiqi waraabe fiqiyow هذا كهر حلقي دولتي محمد عبد الله فرماجو waxaan rabaa maanta inaan falanqeeyo waaweyn oo aan daah ka qaado xilligaas ay xilliga lahayd gorgor waa ciidamo maleeshiya beeleed ah oo farmaajo ku burburinaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo uu rabo inuu wadanka ku qabsado si kaligiisnimana oo ugu sii joogo maanta maxaa tiri gorgor صدق وحيابات بربانا كنت المعامل قف كان ودني جاهين هذا لا رياضة نوع عصا كلولية قف كان إنه جبيت كاه وأما قلبي إنه جبيت كاه هذا أما قبيلة كاه هذا هذا لا سلية قف كدين لاوي جاه وتشاهل كاه أو أن وحبا أقول ده قف كبرك تشاهل يهاي وحما ما كلا صوعه رياضة عصا كلولية صدق هذا مركب اسكت الصدق وجاهل دين لاوي وما تغنى أي شيء ودني معه والله انقاب حق قلبك يا حق قبيلك والله انقابك هذا اللي نقاله تغورابي والله وحو استاهله او ساكا دلك كاستاهل انا ما جرته وحرام ساكا كاسو كلا حق ان لو ديبت حل قف wax garanaya وما إلهي قرني أما أمدي لا جعلك هاي السنة وما ديبته والله ما ديبته وبالله ما ديبته قفك النوع عاسوكرا وكم النوع قفك النوع عاسوكرا إن حلك النوع عاسوكرا إن لو ديبته أيانا ويروح وسيرك أرمها دبدل وعلوسه يبدل وسيرك عشانك ما يستاهله ما يستاهله مركي شروع عادية أو شروع دولات كلو قد رقمه ما يستاهله إن كان سكر حلو ديفتو نوع سكر ولا جم النوع ويقف النوع سكر هو جاهل وحام سكر ديو وعاو يقانا كلي أسي وحلو بريو جاهل نكان حاجة قونته وكجاهل نيجا كستوعي تاي ديني ما دبا حاجة قلبي أنا وكجاهل أو ودني معها إنه مركز حلو قبته وأن الجاس حرام ومقدعوي حلال ما حلك أو حياة ويوها حلال حلك أو يقفك مركو يقانه كشقيه كرامة هذا وحى يتهي يقانه ومضى كراميه كان أسكري أو هوستا أو كراميه شغل أو كراميه ومضى صواريه أو هي كراميه بحلال غطا لكن حلكي هدين غطا إن أمدي لغو شايفيه oo ummadii lagu caayo oo lagu dhibaatay oo shalay markuu dibad joog ka ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku tilmaamay maleeshiya beeleed madaxweynuhu oo iska leeyahay farmaajo miisna jaas ahayn saaka inuu noo qabto miisa fadara xaraam ahayn inuu saaka xilka noo qabto nijaas maqdaca weey saaka xilka uu kaas ku fadhiyo maqda xaraam cadwi wallahi been ma yisheegi in saaka xil loo dhibta kaas waxa adoo nijaas xaraan ah oo nacrado ilaahay harseeyay adoo yiri waa xalaal weey saaka xilka fi qoraabahay fadara xil loo dhibtay weey marka fadara kale loo dhibatay ee waxa xaalo uma dhiban fadara u dhibatay weey waxaan aad uga xumaay marka aad uga xumaay oo nasiib daraa oo aan cambaaraynaya askarta xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka hor qodbaynayo hor fadhida
aad baa taxsiinaya magaca wasaaradda gaashaandhigga waa ka taxsiinaya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ciidanka uu hor fadhiyo oo u qodbaynayo gorgor ah oo shalay maleeshiyaad beeladka ku tilmaamaya waa taxsiinaya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan kaloo ka taxsiinaya dowladnimada iyo qarannimada waa ka taxsiinaya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun taxsiibaan wada marka tan waa taxsiyeyn inay najaas aw yahay oo aan wax loo aamini karo wax lagu dhiban kara awsan ahayn waa muuqataa oo kaas labadiisa hadal baaydiin muuqato oo marxaati fur ah waxaan ugu talagalay marka kale oo kale in xil loo dhibta ay najaasta marka ku tilmaamayo labada kalmadood waxaan u soo qaatay oo midna shalay u lahaa midna daraada u lahaa waxa uu yahay inuusan haran karin inuusan istaahilin inuusan lahayn inaysan shaqadiisii ahayn taas way waxa og najaasiisay marka ma uu istaahilo xilkan wasiirka gaashaandhigga ma istaahilo wasiirka difaaca ma noqon karo jaahil wey وجاهل حن وبختيو وري أوي رمان ورمية عقدات بالرمية ورمية عقدات قبيل بالرمية قرن متشعر قبيل بوتشعليه سي قرن كل لوجا أمين مرك ده قف كسي اللي توك أسا كسي عم بكوا من توديبتي صومالي وما هي قرن وما هي هذا حلكة ويا وحيل قبيل وي ما حيل قرن نو أنا طايل هالكاس وسخر صار له قشي كاس dhageyste adoonkan ma aragtaan xasigar guurti yaa ugu talagalay ilaahay baa idinku dhaarshay gabar Soomaaliyeed inay boosh iyo qor xirato shaqadeed mata sharciga diinta islaamku ma tilmaamaya inay shaqadan qabato anagu ilaa dad islaam ah nahay ummadii nabi maxamed ah nahay ma istaahisha xilka noocaan in loo qabto liilaada hebleeyo meeyo qorigeed iyo boosheedii haday ciidanku ku jirto ميديا انتو صافرين فيديو ولا قضوا هذا لا يحاولوا القريه هذه باش كاين ما يحد شعيلك حق كويس وعاس مرح من نقول كلامك وراي يستوي هوي دغسوروا يا هم بجوابلي وريا هوي اف سوماليغا غورتا marka aad maqasheen hawiyo turubari maanta taariikh waan siinaya hawiyo turubari marka aad maqasheen ما هوية أقوم ببرت ما هاي هوية وحو البوائل بحي ما هاي هوية أفصومالي ما أقوم حلقة قاعد مقشين سيد عبد الله حسن الله ونحريسته dadka oo soo maro koonfureed alif dhamarku yiri alif boqolkiiba 80 hawiye ahay taariikhdan uu haya raaweyn baa lagu xataa waa been waxba ka jira wey dadka markii la weydiiyay liiri alif hawiye ahaayeen far Soomaaligan hadeer waxa baray daalood baa baray mid lagu hadlo luqadda iyo mid qoraalkaaba hawiye daalood baa baray hawiye ilbaxnimadiisu waxay ahayd shaqadiisu waxay ahayd beeraha inay falaan xoolaha raacdaan xoolo dhaqatay ahayd mas'uuliyad dal iyo dad iyo qarannimo ma qaadi karo qof hawiyaha hadduu jaamacad kasta ka soo baxo PhD iyo Masr oo wato oo xambaarsan yahay aqoon diini iyo mid maadi ba hadduu xambaarsan yahay qof hawiyaha qaran ma xukumi karo ma haran karo ma qaban karo ninkaas xasan garguurta anka wax la xeeladay qofka ma fiir dhageyso markuu qofku qaranka waxa ay sheegay markuu qofku haran karo oo mas'uuliyadeeda leeyahay meel shaaric intuu u yimaado ma dhihi kara gabar bay qorigaaga boshkaagi arinteed ma ahayn arinteed midda kale anagu dad islaam ahaan nahay haweenka waa la yaqaan shaqadooda haweenku inay xafiis qof mid aad shaqo tagaysa meelaha fufuda xafiisyada ah sida ma taqaan adigu meelaha yar ka fufud in haweenku tagaan ba horta sida sharciga diinta islaamka marka anagu dad islaam ah nahay haween ugu ma naatay inay mas'uuliyad qaato horta looguma tali ilaahay ugu talagin ummad inay hogaamiso inay difaac gasho qoriyo boosh xirato naasaha ka dhalaqsiisa iska dhaaf looguma talagelin baa inay iyadu hogaan noqoto waxa keenaya shaqo xumada keenaysa wadanka ka jirta haweenku inay ma taqaana qori iyo boosh intay qaataarkiis ayoo tuutal bisan qori boosh wato ciidan hor socota dhalaq haweenkeena looguma talagelin
shaqada hadii loogu talagalay shaqeeyo tartiib oo leexsan oo asturan oo gabadhu ku asturan tahay ay halkaas wixii ka qaadanayso baa loogu talagalay mid asalka loo yaqaanana xaafadooda joogto ku asturnaato diin iyo maadi wax aad wax barayso waalidkii wax barahayo halka wax lagu baro ninkii guursadaayo halka ku asturnaato asturnaan baa gabar loogu talagalay xasan garguurte oo sheeganaya nin madaxweyne ah intuu shaaric gabar ugu yimaado askar saa u dhooban inuu yiraahdo haye haalahay magaca حاولوا قرية دي بوشكيدي مني مركا أنا لا يقف وياهو في صومالي أنا بعرض بعبري سيد عبد الله حسن قدم سيد عبد الله حسن مركو وده كملها هي كفرنا أقف عارف ده أقف توقعي بقول كيف سيدات الهوية هاين حاولت أن أفتركوا هذا حاولت شيء يي وارثان بقول كيف سجاش هوية أنا علي إلهي بنا له مركا أقف نيجو كوي شلي وقف صومالي الله بري وفر صومالي الله بري وإنه الصومالي هي ودر لحرت حتى الله بري وايا dadka waa la yaqaan waxay ahaayeen Talyaanigii Ingiriiski weydiiyay hawiyay daarood maxay kala ahaayeen Talyaanigii Ingiriiski weydiiyay wadanka gumaysan jiray yaa boqortooyada Soomaaliya iska lahaa boqortooyada Soomaaliyeed yaa lahaa yaa dalkan loogu yimi yaa xukumay hayaha beenbeenta oo iska sheeganayo waxba kama jiraan wadankan daarood baa xukumay waliba waa xukuma nin daarood oo maartan wali ama madax ha noqdo ama wasiir ha noqdo mid nooc kasta taliya ha noqdo yaa arkay intuu soo hor istaagay ciidan yiraahdo hebleeyo meeday qorigeedii booskeedii yaa arkay hal intuu yiri hadda ka hor qarankii ku tilmaamay Maleeshiya beelad haddana u qodbaynayo dhahay qarankii hebel haaway mid ku soo lahaa waa Maleeshiya beelad yaa arkay dunida yaa soo bandhigi kara ari soo saar oo kaas hawiyow hadda dad niman leediin aqal leediin kaliibku way soo gaaray maalmo ay soo gaaray وهذيك هو أنا نعبت أنا نبعك على ماشي هالمطعم ده صوماليات بودنا برك صوماليات ونقد حياة لكن شق حما أنا وين كنت معنا شق حنتين وشقنا هنا شغل كلاين بانو ينشق واحد كلاين مشاو عمنا ما عين ما نيو شقنا كبس بيه كرتين من استعيشد من التقاليد سقط عمنا ما عين ما واحد كلاين وين مرضه وأنا نعبت بعين وكل معه هذا يكسب يسيرني أما يكسب كمان حما يجي الناس سبعين أنا يجي مصرين كمان dalka Soomaaliya ku wada nool lahay iska daay walaalayaal shaqadan aynaan aqoon iska daay dawlad ma xukumi kartaan dalka kuma xukumi kartaan ma taqaanaan iska daay hadii la yiraahdo ha ooyinina hana cabaadinina isoo keen hadaa haysan nin daarood ah gabarna ahaatee hal gabarna ahaatee rag iska daa gabarna ahaatee ay taa indhala oo indhalahay oo intay kalmada fiqi waraaba ku hadlo ama xasan ku hadlo أما هو يوم كواليان أنتوا كوالي ما أنت ماشوا عايو عبينيو وحكشيجي هاي حيل كده هاي إيسو شيء والله ويدك الدنيا وبالله والله ويدك الدنيا كلمة هو وبقراء إذا لا بلك عيا صوح كويتر عن الله عريكان هل كريب إيكان وقف ضعروضه وقرنك كوعي ما جرتوا لما يريكروا تاريخ عن قوي وهذه واواي وحلا لا إيه وحن أو حنا معمول أقوني وحنا دين أقوني هويونه هوية دولنا ما يقان وما معمول يقان ما ندين يقان هاي سيل يدين جاي أمرك سيل دل كنا وقت حينيا سيل دولنا ما قوة يراينا دل كان أنا كنا أنا مدة الصوماليات كنا إسكداي ما حكومة تقانان وحنا مغتير ساحيم ناقود سبيل وين بعوض بيسة دولة هوية بخاخ بعوض بيسة وحنا كبتشلاوي ومالع الله إسكداي المال الريال ودولة حمضان هي شغل حمضان إسكداي دولة ما تقانان dadka kuma maamuli kartaan adinku kuma maamuli kartaan ever zero meel baadhay baad ka bilaabaysaan ay ku maamulne oo caalamka idin geeyne beerihiini dib ugu noqdo iyo xoolo dhaqatadiini shacab noqdo la xukumo hadii taa la waayo wallahi waxa imaan doonta oo ilaahay ugu og yahan ku hadda inba ka dambaysa waxa dhici doonta dhulkan daarood iyo Soomaaliya degta waa xiranaynaa wax kale ma sameeyno waa xiranaynaa qofkii soo galo adinka wala ina ku cashuuraya ajnibi baa la ina ka dhigaya umada Soomaaliyeed baa imaanaysa baxa meesha ka imaan meesha aadeen xamartaad sheeganaysan oo leedin annagu waa iska leeyahay biiseen orda aadan leena
وايد كحرينا مركا ودك سو غليسا فيسد كسو غليسا والله فيسد كسو غلي دونتان اوغاد وركايغاس وركا اوغاد haddii inaan dayn in la idin xukumo oo dalka mas'uuliyadda dadka qaadi kara in aan loo dayn oo inaan fardaynta qashinka inaan ka dayn dalka daaro dhulkiisa waa xiranaya dawladuna ka samaysanaya ummadda inteeda kalena uu soo gelinaya dawladda wax kala haanaya qof hawiye ah oo magac hawiye sheegta fiisa baa loo sameynaya cashuur buu ku soo gali doonaa cashuur baa laga qaadi doonaa muwaadin ma noqon doono marka dambe adinka runta ogaan doono dhigi doonta waa isdhiim xil dambe ma qabanayno shughul kuma lihin na xukuma halkaas ka dhawaan doonta ogaada waxa dhaca haddeer ka joog hawiyo anuu intaas ayaan sheegay wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh